meydadka al-shabaab intooda badan diyaarado lagu duqeeyay ayaa lagu soo bandhigay galcad oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku hayaan waxaase muuqaalo argagax leh oo halkaas laga soo duubay laga dheehan karay ficil aan wanaagsaneyn oo dadka intooda badan ay si weyn uga argagaxeen xogihii ugu dambeeyay al-shabaab oo xalay weeraray ceelasha biyaha iyo booliiska militaro oo cashir culus u dhigay al-shabaab halkan ayaan kugula wadaagaya mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay markasta iyo meel kasta oo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato wararka aynu ka helayno galcad oo goor sii horeysay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kala wareegeen ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi shalay gelinkii dambe ilaa iyo xalayba la geeyay meydad aad u tiro badan oo xubno al-shabaab qaarkoodna ay amiiro yihiin meydadkan waxaa laga soo duubay muuqaalo iyadoo ciidamadii halkaasi ku sugnaa oo dhalinyaro u badan ahna kuwa gorgor ay cashir culus u dhigeen al-shabaab dagaal soo bilowday habeen hore ilaa iyo shalay oo dhan socday duqeymo culusna ay barbar socdeen ayaa lagu soo afjaray al-shabaab badan oo ku jiray dhulka hawdka iyadoo dawladdu ay sheegtay in dadka la qaarijiyay uu ku jiro hogaamiyaha aadka loo doondoonayay ee galgaduud iyo shabeellaha dhexeba aadka saameynta ugu lahaa daahir calasow haddaba arrinta argagaxa leh ee muuqaaladan ay xambaarsan yihiin ayaa waxaa qayb ka ah in ciidamada dawladda ay ku ciyaarayeen meydadkii ay soo qabteen qaarkood iyaga oo lugaha ka xirayay kadibna jiidayay ama baabuur ku daba xirayay sidoo kalena waxaa la arkayay qaybo ka mida jirkii dadkii la dilay oo googo'ay iyadoo ciidamadu ay si kale ula dhaqmayaan taasi oo muuqaalada la soo duubay dadka intooda badan ay ku tilmaameen mid aan wanaagsanayn inkastoo dhalinyaro ay u badan yihiin oo in badan ay wacyigelin u baahan yihiin haddana waxa iyagu ula jeedaan waxay tahay al-shabaab iyo xarashka ay u hayaan iyo halka ay kala joogaan iyaga iyo al-shabaab meydadkan oo aad u tiro badan oo 100 ka badan ayaa lagu soo bandhigay galcad waxaana la arkayay ciidamada dawladda oo kala qaybsanaya hubkii laga dishay raggaasi qaar ka mid ah askarta muuqaalada laga soo duubay ayaa leh hebel qoryo badan ayuu helay aniguse qori ma helin aad baan uga xumahay howlgallo culus oo ka socday 24kii saac ee aynu ka soo gudubnay dhulka hawdka ah ee u dhaxeeya shabeellaha dhexe iyo galgaduud ayaa al-shabaab dhibaato culus lagu gaarsiiyay isla markaana howlgalkan ujeedkiisu waxa uu yahay in la yareeyo saameynta al-shabaab ee xuduudda labada gobol iyo inaysan weeraro ka geysan galgaduud iyo shabeellaha dhexe oo dhowr jeer oo hore ay weerareen kooxdan daarunimca ilowlegaab iyo weliba meelo kale oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe halka galcad iyo agagaarkeeda ilaa iyo budbudna ay weeraro xooggan ka geysanayeen dadka qaar ayaa u arka in dawladda Soomaaliya ay kala jarayso wadooyinka gurmadka ay u soo maraan al-shabaab marka dagaal ay ku jiraan isla markaana haddii xadkan la adkeeyo al-shabaab aysan weeraro ka soo qaadi karin dhinaca galgaduud meelaha ay kaga sugan yihiin iyo shabeellaha dhexe meelaha ay kaga sugan yihiin haddaba ciidamada gorgor ayaana hadda loo sii qorsheynayaa inay qaadaan howlgallo kale oo culus oo isla deegaanada al-shabaab ku beega iyadoona ilaa iyo iminka kooxda al-shabaab si faahfaahsan aysan uga hadlin guusha dawladda Soomaaliya ay sheegatay ee ku saabsan in 150 askari la dilay amiiro uu ku jiro ninka lagu magacaabo daahir calasowna uu qayb ka yahay dhinaca kale weerar culus ayay al-shabaab xalay ku qaadeen ceelasha biyaha oo ah duleedka magaalada Muqdisho weerarkan oo qiyaastii bilowday 3 habeenimo ama 9 saac habeenimo ayaa wararku ay tilmaamayaan in al-shabaab tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa iyo 16 ay weerarkaasi afsaar uga dhigeen hubka aadka u culus ee garbaha laga rido isla markaana waxa al-shabaab la sheegay ujeedkooda inuu ahaa in weerar arbushaada halkan ay ka fuliyaan si la mid ah weerarkii tiida oo al-shabaab ay ku dileen ciidamo ka tirsan dawladda iyaguna wax looga dilay ciidamada booliiska militaro ayaa ku sugan deegaanka ceelasha biyaha oo amnigiisa aad ayaa loo adkeeyay dilalkii iyo falalkii rabshadaha ahaana hoos ayay u dhigeen ciidamadan haddii si kale loo eego waxay ka mid yihiin ciidamada ugu wanaagsan ee intooda badan aan balwad lahayn amniga Muqdishona wax ka bedelay ilaahay ayaa amniga haye hase ahaatee ciidamada oo feejignaa
ayaa iska caabin xooggan ku sameeyay al-shabaabkii soo weeraray ilaa markii dambe ciidamo gurmad u ahaa ay u yimaadeen ciidamada booliiska militaro sidaasna lagu jebiyay al-shabaabkii weerarka soo qaaday qaar ka mid ah saraakiisha booliiska militaro ayaa sheegay in 4 qofood oo ka tirsanaa al-shabaab ay adeegsanayeen hubka laga rido garbaha isla markaana ay muujinayeen inay yihiin dad tiradoodu aad u badan tahay oo halkaas weerar ku soo qaaday weeraradan arbashaada ee al-shabaab ay sameynayaan waxay ku muujinayaan in awoodooda weli ay taagan tahay oo cidna aysan uga baqaynin in weeraro ay ka geystaan gudaha Muqdisho ama duleedka magaalada Muqdisho hasaate waxaa loo arkaa taatiko cusub oo al-shabaab ay doonayaan inay kula dagaalamaan dawladda federaalka Soomaaliya inay tahay tan al-shabaab waxay ka soo gudbi karaan meelo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose oo intiisa badan ay gacanta ku hayaan magaalooyin yaryar iyo tuulooyin mooye waxaana sidoo kale al-shabaab ay ka soo weerartay karaan dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe webiga jiinkiisa xawaadley wixii ka xageeya iyaga ayaa inta badan gacanta ku haya sidaa daraadeedna waxaa muuqanaysa in ay doonayaan in culays badan ay soo saaraan amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho oo bilihii ugu dambeeyay isbedelo laga dareemayay qaraxyadii tirada badnaa ee baabuurta lagu soo rari jiray ee kooxdan ay soo gelin jireen magaalada Muqdishona ay hoos u dhigeen ilaa iminka lama ogaan karo marka la fiiriyo khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee dagaalkaasi ka dhashay wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa la sii wadaag muuqaalkan asxaabtaada kale mahadsanid